الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. مشروعani waxa weeyaan mashruuca masjid Faatima la yiraahdo ee Hargeysa ka dhisan xaafadda 150ka garan xaddi ka soo horjeedkeeda. mashruucani process buu soo maray processka uu soo maray anagu ma design-ka sameeynayni qofka client-ka noo ahaa waan la dream gareynaynay waxaanu islahayn wax wanaagsan wadanka ku soo kordhiya laakiin se qofka hirgeliya waxa weeyaan qoladii mashruuca fan gareynaysay ilaahay ka jazaaysiyo oo wallahi isku dayay fikirka anagoo aan islahayn waa suurtagal in san loo sameeyo haddana isku dayay inay sideedii ay u hirgeliyaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee marka design la sameynayo ay tahay in la fahmo waxa weeyaan process baa jira la raaco processka waxa ugu muhiimsan dhulka in la fahmo location-ka site-ka in study badan lagu sameeyo meesha uu ka samaysan yahay masaajidka waxa meel kala sareysa laba wado oo waaweyn ayuu labada dhinac ku kala hayaa mid waa road number 1 midna waa jidka 150ka waxa u dhaxeeya level difference around 4 meter ah dabeetana si aanu u address gareyno labada dhinac ee dadka ugu badan ay ka imanayaan waxaanu abuurnay amba aanu ku ciyaarnay level difference-ki waxaanu abuurnay grand entrance oo ah dhinacan 150ka waxaanu sameynay staircase grand ah oo cost badan uu ku baxay oo aanan islayn markii hore suurtagal weyn in la sameeyo waayo dadkeen waxyaabaha noocaas oo kale way ka cararaan tii waxay keentay in masaajidku uu noqdo masaajid aad u qurux badan language-ka aan masaajidka isticmaalnay waxa weeyaa waa Moorish style at the same time waxa ku jira bit of Emirati maxaa la yiraahdaa touches baa ku jira waxaanu doonaynaa in kan iyo kuwa badan oo kale aanu wadanka ka wadno aanu ka sameynay inay noqdaan iconic buildings wadanka wax badan ku soo kordhiyo oo ka bedela dadka waxaanu kula talinaynaa hadday yihiin reer Somaliland iyo Soomaalida meel kasta oo ay joogaanba in wax kasta oo ay sameynayaan ay nashqad ay happy ku yihiin oo environmental friendly ah oo cost effective ah oo qurux badan ay sameeyaan waqti badanna ay geliyaan جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع si design dhammaystiran loo sameeyo wax loo baahan yahay different expertise shirkadda Rio waxay noogu diyaar ah dad aqoon leh oo engineer ah oo ka kooban field-ka construction-ka wixii ay u baahan tahay hadday noqoto mechanical electromechanical engineers hadday noqoto structural engineers iyo hadday noqoto architects iyo interior designers ba teamka halka jooga dhamaantood waxa ay ka kooban yihiin dad xirfadda nashqadaynta dhismayowga ku takhasusay يغمر الكون ضياء وظلام